warahmatullahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga waa idin salaame, waa walaashiin Mareysiman. maanta maxaa idin wadaa qadayro aad u fudud oo wiil aboowe oo iskaabula iga soo codsaday. marka qadadaas talabaa la socdo wuxuu dhahay basasha ma jecli, basal ha ku darin, mid kalena ha shiilin bariiska. marka bariis yar oo fudud oo aad u macaan sida ugu soo tuuro lahay inay isoo dhigtaa raba video. marka idinka idin la wadaaga waa kaasa sida u sameeyo bariiskaas furfurka oo maasha Allah oo bisil. bal ila arka insha Allah sida u sameeye waa kana daawasho wacan. halkan waxaa igu jira chicken, 2 xabo oo chicken oo shaf ku sameysana. marka bariis yar sameysana insha Allah. waxaa ku tarsada 1 xabo baradhe iyo karootada jabkaas bisa iitiile. marka waa iskaga tarsaday. waxaa kale ku dara xabad toon iyo jab sanjabiil waxaa ku darsaday xabad oo qarfe iyo xabad oo xidigta oo carfisa, yani bariiska carfisa. marka intaas digsiga dibka waa u daartay. marka dibku uu shidan yahay 2 xabo ukunaha gashtay. intaas soo karsana insha Allah. marka soo karey isku soo laabanayna. waa kana hadda uu ii bislaado waa ka bixbixina biyahaas bariis ku karsana insha Allah. halkaana dhigtay alaabteeda kale. intaas hadda way bariiskayga sameysana. waa u qiyaasto waa biyaha adiga waa u qiyaasanay inta bariis oo karsanaysa ay ku xiran tahay. marka hadda saliid yar aa ku tarsada si oo bariiska iskaga dhegdhegin. waxaa ku tarsada saliid yar, ma la shiilaayo, basalna ma lagu daraayo bariiskan insha Allah. marka waxaa ku tarsada xawaashka oo waxa waaye oo Mexico oo isku tartarsan. marka xawaashkaas anaa sameystay, idinkana ilaa ku yaala suuqa insha Allah waa soo kada kartaa. cusbo yar aa ku tarsaday. waxaa kale oo ku tarsado toon aa soo tuntay. intaas way ii karkartaa. jab 1 xabo maraq digaag aa ku tarsada. 1 xabo maraq digaag walaalkay si fiican u fiirso insha Allah. si fiican aad u fududeeya bariiskan waana shab shuluk. marka hal bakeeri oo bariis waaye. intaas aad bakeeri weyn waaye. marka oo bariis aad waa u qiyaasa kartaa 1 bakeeri 2 bakeeri inta karsanaysa qiyaastaada ku xiran tahay. waa kaasta. marka ana 1 bakeeri waxaa ku tarsada adi biyaha waa 2 bakeeri iyo half bariiska bakeeriga ku cabirta labadiisa iyo halfkiisa oo biyo intaas u qiyaasanay. waa kaasa hadda uu ii bislaad biyaha ka kursanay. waxaa ku tarsana huruudaas color ay u yeelaysaa. ana ma jecli inaan ku kariyo, marmarka qaarkood marka shiilaayo waa ku shiilaa, laakiin hadda kan bariis cad waaye. qumbahaasna hadaartu waa ku tarsan kartaa, hadaartu waa iska dhaafi kartaa, laakiin ana waa ku tarsana qumbaha waa jeclahay. marka qumbahaas maasha Allah bariiskana qatar oo ka dhigaa. marka hadaartu walaalkay waa ku tarsan kartaa, hadaartu waa iska dhaafi kartaa, muhiim ma aha. dibka waa u kaabina hadda kaab aa ugu dhigaa dibka si oo igu huuro. markaas dibka waa u kaabiye waa daboola maasha Allah. waa kaasa wax yar kadib oo isku soo laabanay. biyuhu wuu ka kursaday maasha Allah tabaaraka Allah. bariis furfur oo bisil oo kusoo baxay, aad u bisil yahay waana furfur. marka isku ma dhagdhagano. waa kaasa maasha Allah tabaaraka Allah. waa sameysan kartaa waliba si easy waaye, sida ugu fudud oo bariis loo kariyo waaye. dhalinyarada oo iskaabulada aan u fiican yahay, yani wiilasha ma jeclo bariis shiilaan maanta shaqo badan waqti badan inuu ka qaado ma jeclo. wax macaan way rabaan. marka insha Allah taasa ugu fudud. bariisku waa kaas xakaas ayaa ugu baxnay. halkan chickenka ii soo haray kaabash iyo waxaa ku tarsanaa iyo chickenkeyga isku tarsanaa. hadda halkaas xawaash yar iyo toon aa soo tumay baaquligaas ku soo shubtay. chickenka rabaa inaan ku sameysto. waxaa kaloo ku tarsaday jab maraq digaag waxaa kaloo ku tarsanaa saliid saytuun yar. saliid saytuunkaas aa ku tarsanaa. intaas isku jijibina.
marka ma aad u fududaa maasha Allah tabarakallah waa fudeed dhaafe waa kaas intaas isku sameystay hadda waxaan marsanaa marka chickenkeyga biyar aad isku sii kartaa hadaadna waa ka dhaaf kartaa laakiin hadda aniga waa qiyaastay saliid wax yar saliidaha ku celiyay oo saytuun yar u biisay marka maasha Allah saas uu igu habeeysan yahay birta dabka saartay saliid saytuun ku shubtay saliid cadeed haysid oo ku sameysan kartaa hadaa ay saliid haysid oo ku sameysan kartaa subag hadaa haysid oo ku sameysan kartaa laakiin saliidaas aan ku sameystay basalna looma rabayaa maxaa basal shuweys ma kiilowda ma jirto raashinkan basal dhan waa mamnuuc oo ka yahay marka waa kaas chickenka hadda waa saartay waxa kale oo ku darsanaa baradhadi oo soo fiiqay waa soo jaray waa dhaxda ka soo jaray karootada sidoo kale dhaxda ka soo jaray marka sidaas aan rabaa inaa ii ahaado yacni inaa burburiyo waxaas ma rabo karootada waa kaas aad u fududaa raashinkan chickenka ogaada uu ii karsan waxaan oo dhan way ii karsan yihiin bas gaabish kale inaa ku huuriyaa rabaa marka ukunteeda ku darsada gaabishka hadda kor ugu shubtay iyo hal xabo oo waxa ku darsaday maxaa la baamiye ku soo jarjartay marka intaas qudaar badan looma rabo waa sida ugu fudud oo leega codsaday waay bariiskan waa leega codsaday dalab waay idinkana waxa hadii aad rabtiin qof kasta wuxuu oo jecel yahay oo iga codsado oo soo sameynaa insha Allah marka talabkiina iskeena iga soo dalbado waxa jeceshiin halkaas waxa waa wixii oo iiga haray chickenka ugu sameynahay biyara ku soo shubtay kadibna oo ku shubtay haatan oo ku daboola hada wax yar 5 daqiiqo camal oo ku huurina waa kaas hadda diyaar waay karootada waxa la ka rabay gaabish kale inuu ii huura ka rabay inta kale oo ii karsan yihiin chickenkana ii gaduuto hoos oo gaduuto maasha Allah waa kaas dib kale u dhaafay oo ku gaduud meeshiisa ku gaduutay marka maasha Allah tabarakallah raashinka waa kaas diyaar waay hadda saxankeena ku soo quranayna waa kaas maasha Allah hal xabo moosa dhinac ka saartay kunti bariiska furfur maasha Allah bariisku wuu jilcan yahay waana furfur marka aad u fiican yahay dhalinyarada aad u fiican yahay sidaas leh u karsado waa si fudud oo haddana aad u macaan insha Allah qof kastana dalabkiisa diyaar u ah inuu oofiyo wax kasta oo jecel yahay qof kasta waxa jeceshahay soo codso ana diyaar ayaan u ahaa inaad tixgeliyo codsigiina insha Allah